إلهي يرادو فيديو وحان ربا إنان كغا حدو mid kamid ah shakhsiyaadka ama hogaamiyaasha ugu saameynta badan dunida islaamka soo maray rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu yiri hadii uu jiri lahaa nabi iga dambeeya wuxuu noqon lahaa Umar kii rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu kaga yiri ilaahay soo islaamsi labada Umar midka ajaash qofka aan rabno inaan kaga hadalno videogan waa amirul mu'minin Umar bin Khattab radiyallahu anhu wa arda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أغناكسن أخيري ميل والباء جوكتان بن الخطاب أبتر أهان وحالي هذا عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى أنك أبترك آباه سيو كالت أنك أبترك هويد وحالي هذا هويديس وحالي هذا مقع أهان حنتما بنت هشام وحي المأذيريين هويديسا سلمة سيدو كال أبو جهل سيدو كالت المأذيريين خالد بن وليد سيدو كالتو المأذيريين عمر وحو كل شيء نواحي مكة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وحول الشيء سدحي تونسنة كدب رسولك صلوات الله وسلامه عليه أما بعد عام الفيل كدب سدحي تونسنة أيوة الشيء عمر رضي الله عنه وأرضاه وحكبر باري مكة قريش لأن يردي حلقان ولد وصوبر بارتي ري قريش فركوتريس كأها فرت سيدي لو قرأ ما وح قرآن لآخرية أيوة كمدا عمر بن الخطاب وح آخرته وكفعنا وح قريشته وكفعنا تاسع كانت عمر إن قريش ودورته سفير ودورته مركز إسقطان قريش قبيلة كلاته أما ديجان هان اللي إسقطه وحيدر سنجرين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سئو محلي هذا قلها قبيلة كل مان وحوجوي جناح سجن وها أو جناح سجن وكفعنا مروح على شجع تاجرين تأوسر رئيس إنه كبيري لأنك جناعسية سيدو كليتنا وحو أهاني فرد فولك كوفي عن محلي هذا لقدنتنا سيدو كليتو كوفي عن أيوة وحالة الماما حتى فرسك أنتو لديه سقبت إنه لقطة كليتو محلي هذا وتاجو لقطة وهرك فول ولا يقنا فردولي ذي تقنا إن فرس إن عومد للرادي ما هني قفك فرسكو تاجن إنه لقطة أنتو تاجتو فولي كرين سيدو كليتو حا سيرة الشيكتا أو كتابة يكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مركو فرس كساري هاي وصعبه إن لويه يسألك إيتابا جرين قف ديروها عمر بن الخطاب وحال الشيغا قف فرد فولك كفي عن إنه أها سيدوك اللقدنت كفي عن قف مرقيه لسينيين عقل جيسينو لسينيين إنه أها تاريخ أهان ساسا الشيغا مركي رسولك صلوات الله وسلامه عليه لصو صاري دينت إسلام كسر قريش نواحي مكة وحيد دجن وجارسي رسولك صلى الله وسلامه عليه صحابة يسوع إسلاميان عمر رضي الله عنه وأرضاه وحاد علي سيد قريش يولف ستي محلي هذا ده كان دينت إسلام ككبيرة يولف سدين بو عمر نولف سدين صباح أبو صوته وسي عمر وحسوا هذه رسولك صلى الله وسلامه عليه هل كوجوجي برلمان كإسلام كحلقة أرقم بنا أرقم قريلي asagoo dhaxda socda ayaa saxaabada kamid ah jidka ay ku kulmeen markaas uu weydiiyay Umar wad xanaaqsan tahay seefna uu watay waan xanaaqsanaa xagee u socotaa markaas wuxuu yiri Muhammad kan oo dadka dhamaal diinta naga fasahaadiyay rabaa inaan dilo markaas wuxuu ku yiri Muhammad hadaad dishid qoladu ka dhashaadan ka nabad heli doonine reerkaaga soo uga warta Muhammad diinta intaad ku haysatid reerkaaga diinta qaarkooda qaatay waran diinta yaa qaatay waa gabadha kula dhalatay Faadima diinta qaadatay sidoo kale tan dhinkeedan uu qaatay oo Saciid Umar uu soo laabtay naxdin bay ku noqotay inuu Muhammad iyo dad kale uu raadiyay iska daa ahalkiisa qaarkooda islaamay buu maqlay gurigii Faadima yimid albaabka markuu gargaraacay wuxuu maqlay cod ayuu quraan akhrinay ayuu maqlay markuu maqlay kadib albaabku gargaraacay markay ogaadeen ayagana in qofka albaabka garaacay Umar inuu yahay baa waxay sameeyeen saxaabiga quraanka uu akhrinay Faatimo iyo Saciid bay waxay yiraahdeen dhuumo Umar waa xanaaqay intuu soo ku dilin halka ka dhuumo way dhuumiyeen meel bay ku qariyeen kadib waxa dhacday Umar inay ka furaan oo su'aashii weydiiyay maxaad akhrineyseen maxaa gurigan ka maqlay codadka maqlay maxay ahaayeen gacan ayuu u qaaday sidigiisii iyo sidoo kale gabadha la dhalatay Faatimo dhaawac buu gaarsiiyay ruujiga ilaa gadaal dambeeyay ay ka soo dhacday kitaabkii wixii maxal yiraahdaa wax ku qornaayeen Umar gacantu u taagay si uu akhriyo waxay ku mintideen sidigiisii walaashiis ay ku mintideen oo diintan ay ku qaateen ay Umar ka soo hor istaageen Umar ka laga baqay dadka dhamal Quraysh oo idil ay ka wada baqayeen ila taageen anaga diinaan raacnay diin islaamaan raacnay ilaahigaan waaxidnay diintaada ma aha anaga ma gaalooyin diin fiican aan qaadanay ilayhin buu la yaabay markaas wuxuu yiri itusiya waxaad akhrineyseen ama diintan aad qaadateen markaas wuxuu ku yiraahdeen kuma tusayno
وإناد أذية قبيستا وأسداهرسا داهر وإنا نقطة هذا ربتد إن نكون ديبنا وحنا أنا آخرين أما وحكو قرنا مقار كان مقار حلقة واحد وقول جري مركا عمر وو أركي إصرار كودا أما أذيب كودا أي تاجيين إنه تنازلين احترامين ولا الآن كله احترامين وأركي دينته إنه كوين تهي مركز وحير هي وهو جان سمي ما حنسميه ويري هدان أباهن هاي إن آخر إن قبيستيد وإستهريسيد وسوق قبيست وماذا كبعدي ورقدي وديبين مركز وآخر وحكو قرنا أول أنتو سنقولوا سوق جلن آخرنا ين ورقد وحكو قرنا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى إلى آخر إلى دوري توان أيضا هذا الشيء عمر مركو آخريي قلبي سدينتا تابتي كبعد حير مركان أباهنا إنا إسلام وأن دينتا قاته حجان أمره مركز حالي توحيدك قابك لو قبل لها أي الله شرحي خبابنا ماشي أي كقريين أي كسب حاليري بنانكو إمالي وحول تلقيمية أو ولقبتي سيد الله إسلامي لها أي وشرح كبعد عمر وصابحي مركو قولي أو إسلامي كدب وحول سؤال هلكي أي جوجين صحابة أي كو مالي سنهين أما سكو قرناين أرقم بنا أرقم مركو الباب كجرجراعي صحابة دولال كي كفيريان وأركان قف كتاجن عمر بن الخطاب وسيف وتينويه عمر هرتيس وحى إسلامي عمر هرتيس وحى إسلامي حمزة بن عبد المطلب يا إسلامي حمزة يا عمر لبض وحى هاي لبقف وسامين كله غير مكة لحظة حلقة مركو الباب كجرجراعي صحابتي أيل أي قلقلين الباب كيا كفران لو ذي عمر كولا بقين الباب كينا كفران مركاسه وحوير حمزة بن عبد المطلب كفر عمر هدو خير وذن وكأقبلينا هدو شر وذن كل يبقى قف هالسيف وتويان هذا المعنى سوي هاي وحبورا نجمع قاعد دون ركبان وذن هاي رسولك صلى الله وسلامه عليه سيدو كله تحوير سجنا هل غفرها صقله عمره صقله كبعية وحير هذا محاكو كاني ولو يدي عمره محاكو كان هل كان مركز وحير رسولك إلهي إنهم كل بايعت موضع ربا إنها إسلام ربا توحيدك أيها الكاكو قبتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هل كاسوكو إسلام يد عمر صحابة ويتكبير سدين الله أكبر أي وذير هذين حمزين ومال مكهر سدح مالين كهر إسلامي وحال شجع عمر قفك أفرتناد إسلامي إنه أها المهاجرين أما ذاتك قدام بإسلامي المهاجرين أنتو سر رسولك صلى الله وسلم عليه وسم مدينة آذين ذاتك قدام بهجرود إنه أها عمر بن الخطاب أي على شجع ذاتك قدام بكجر رسولك صلى الله وسلم عليه أنتو سور استاجوا في رسولك إلهي الدين تسوى حق معه إلهي سوى واحد معه أنا سوى ودس حنكم التاجنين محان أمهم على سنين ما بناك استاجنوا عدة ربطها عدة أنا نصوم مكتب أنا رجني رسولك صلى الله وسلم عليه رأيه وقعتي وحي مالك كدم به عمر وحلا وما يعدري الفاروق مثل كلا ساري باطل كأي حق باطل كي قف كلا ساري أيا لو مجا عمر فاروق أيها لو بحي عمر فاروق أنه وذا نقان سيدو كريتو كعبة اللي جي يري صحابة رسولك صلوات الله وسلامه عليه لبا يا لو قبي قيبنا وحيرا عن حمزة بن عبد المطلب قيبنا وحيرا عن عمر بن الخطاب كعبة أي آدم رسول الله أمري المدينة له هجرة مدينة صحابة وحكو أمري إني وذي هجرودان أسأل رسولك صلى الله وسلامه عليه أنتو سن هجرون كهر صحابة ربضان با هجروت عمر دادكاس أيو كمد أها كعبة أنتو يمد مجلسكي أما ماشي أي فليسين جرين بركول أنتي قريش أي كل مجرين أنتو استاوي وحيي لقف نكي رجع تقاس قداشي سعيدة بما دمير وهويديسا كو فكرة إنا محالي رادا ويل كيدو أنتو أي رفاضي لأويس محالي رادا ناكتيسنا عرملاء نقطو إلميسنا أوغا تقاس سعيدة بما سيكو فوتبول سيلو هبو أيو عمر وحيي هل كاسان كبحياي نكي رجع يدا بما عمر رضي الله عنه وأرضاه مر إلى واتن صحابية إسرائيل أحد إنتي رسولك صلوات الله وسلامه عليه أنتو سن عمر إسلام كهر وحو كدو عيسان جري إلهي يو لبدا عمر متكودا إسلام ماذا كحوجي لبدا عمر وحالي هذا أبو جهل عمر نوى عمر بن الخطاب إلهي يو لبدا عمر متكأد جعشاهي إسلام ماذا كحوجي متكو إلهي جعليا وحو نقضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه sidoo kale tasiirada waxaa la sheegaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu yiri shaytaanka hadii uu wado Umar uu maray uu soo aado ay isku soo baxaan
wado kale ayuu ka aadi jiray wado uu Umar maro shaydaan ma mari jirin ama wado uu Umar saaran yahay shaydaanka kama hor imaan jirin hadal macnihiisu u yahay Umar radiyallahu anhu wa ardaah ghazawaadka rasuulka sallallahu wasalaamu alayhi uu galo idil uu la joogay rasuulku hooskiisu ahaa tilmaamaha ugu wanaagsan oo Umar uu leeyahay ee la sheego taariikhyahanada ay sheegaan waxa kamid ah inuu rasuulka sallallahu wasalaamu alayhi aad u jeclaa rasuulka sallallahu wasalaamu alayhi markii waqtigu u yimid oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu oofsaday saxaabada rasuulka sallallahu wasalaamu alayhi qofkii loo dhiibay lahaa ee ka arinsanayeen qofkii ugu horeeyay Abu Bakar radiyallahu anhu wa ardaah u codeeyay ama tala ahaan soo jeediyay in Abu Bakar loo dhiibay khilaafada wuxuu ahaa Umar bin Khattab radiyallahu anhu wuxuu ku yiri markii isqabsi yar u yimid rasuulka sallallahu wasalaamu alayhi asagoo nool qofku anagoo idil naga hormari oo salaada naga bixi u yiri oo ma anaga qof kale ka hormarin karnaa oo rasuulka ba hormariya asagoo nool Abu Bakar uu gacanta u taagay muxuu ku yiri ila baayactamood ama adan kula heshiinaya ama khilaafada adiga ku codeynaya iga aqbal qofka ugu horeeyay saxaabada rasuulka sallallahu wasalaamu alayhi way kaga dawadayeen Umar bin Khattab radiyallahu anhu Abu Bakar ayay u codeeyeen Abu Bakar muddo hayay waqtigaana u yimid kadib saxaabada rasuulka sallallahu wasalaamu alayhi khilaafada ayagana way ka arinsadeen khaliifatu rasuulillah bay dhihi jireen Abu Bakar Umar baad waxay yiraahdeen aan u dibno Umar baa lisku waafaqay in khilaafada Abu Bakar kaga dambeeyay loo dhiibay Umar markii loo dhiibay Abu Bakar waxa la dhihi jiray khaliifatu rasuulillah ama khaliifadii rasuulka sallallahu wasalaamu alayhi uu xilka maxal yiraahdaa u hayay Umar maxaa la leeyahay markii khaliifatu rasuulillah hadii la yiraahdo macna ahaan ama luqad ahaan way dheeraan doontaa la yiri aan soo gaabino luqad ahaan maxaa yeelay Umar dad baa kaga dambeyn doona la yiri waxaan khaliifatu hadii la yiraahdo luqad ahaan qurux badnaan doonta waxaan sameynaynaa markii waxay yiraahdeen ama luqad ahaan ay isku fahmeen in Umar bin Khattab radiyallahu anhu ay maxal yiraahdaan amirul mu'minin Umar bin Khattab markii loo dhiibay xilka uu la wareegay wuxuu sameeyay fidinta diinta islaamka aad bay u fiday ghazawaad tira badan bay saxaabada rasuulka sallallahu wasalaamu alayhi ay sameeyeen Umar wuxuu furtay xilligiisii Masar ayuu furtay sidoo kale Baytul Maqdis ayuu furtay oo ah masjidkii labaad masjidkii saddexaad ee ugu qiimaha badan maxaa la yiraahdaa islaamka agtiisa ugu qiimaha sareeyo ku yaalo Baytul Maqdis hadeer Falastiin la yiraahdo Baytul Maqdis ayuu furtay sidoo kale xilliga Umar waxa la furtay Shaam la furtay Shaam waxa la yiraahdaa dhulkan Syria Lebanon Urdun Falastiin isku yiraahdo dhulkan oo idil la furtay xilligi Umar bin Khattab radiyallahu anhu wa ardaah sidoo kale Ciraaq la furtay sidoo kale dawladii Rome ayuu la diray Rome iyo Faris dawladaha uu sareeyay xilligaas uu adag ayuu ahaa ayay ahayn kulligood Umar uu la diray jihad ayaa lagu qaaday fidinta diinta islaamka area-da oo idil ay gaartay fidinta maadaama dhulku uu balaartay juqraafiyan dhulku uu balaartay Umar wuxuu u saaray gobol ayuu u sameeyay gobol walba ama maamul walba wuxuu u dhiibay ku kalsoon yahay saxaabada idil uu ku kalsoonaa isleeyahay maamul ahaan meesha uu ka soo bixi kara ayuu u dhiibay Umar markii diinta ay saa u fiday gobolada saan ay u weynaadeen gobol walba qof Umar uu ku matalayo uu joogo ba waxa dhacday inuu sameeyo wafdiga uu soo batay wuxuu sameeyay xilliga Umar waxa la sheegaa inuu sameeyay aqal marti uu sameeyay uu ku sameeyay Madiino guri marti ah dadka ka imaanay goboladan oo idin inay maxal yiraahdaa islaamka uu soo martiyaan guri marti ayuu sameeyay isbitaal ayuu sameeyay ciidanka listi ayuu sameeyay diiwaan uu sameeyay register uu sameeyay ciidanka isbitaal uu sameeyay sidoo kale bakhaar ayuu u sameeyay raashinkooda lagu keediyo Umar wuxuu aan ku ahaa cadaalad ayuu u sameyn jiray islaamka iyo dadka aan islaamka ahayn Umar xilligiisii cadaaladda ayaa lagu sheegaa ama cadaalad ayuu astaan u ahaa ama saameynta cadaaladda xilligiisa aad ay u sareysay Umar bin Khattab radiyallahu anhu wa ardaah marka islaamnimada ay fiday gobolada juqraafiyan u weynaatay Faris dadka ka imaaday qaarkood ay aan islaam ahayn xataa ay noolaayeen ba waxa dhacday in qof kamid ah oo asagoo salaad ku jiro uu fikiray ama xaqdi uu qaaday ama uqdad uu qaaday islaamkan fidistiisa darteeda maxaa la yiraahdaa seef intuu u afeystay labada dhinac uu ka afeystay asagoo salaad u taagan uu seeftii Umar uu dhanka jiliyay lix meel uu ka duray Umar 3 maalin kadib dhaawaca soo gaaray ayuu dhintay Umar radiyallahu anhu wa ardaah saxaabadii xilliga joogtay asaga dooratay ama asaga xilligiisa la soo dooranay joogtay ayuu isku yeeray wuxuu yiri isku imaada intiinan marka isku timaadan qof doorta
sida asaga lagu doortay saasay ahayd qof idin la muuqdo oo ummadan hogaamin kara hala doorto cunugeyga cabdullaahina ha idin ka mid ahaado laakiin tala ahaan ha idin la joogo laakiin tala ahaan yuu idin ka mid noqon cumar kadib uu geeriyooday khilaafada cumar waxaa kaga dambeeyey cuthmaan bin cafaan radiyallahu canhu warda